بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث هو 479 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه وأبو داود، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 23 bishii 7 rajab sanada 1442 isla markaana waafaqsan 7 bishii 3 maaj sanadka 2021. awalan waxaan ka cudur daaranayaa dibdhaca maanta darsigeena ku yimid. waqtigan waa waqti duhurkii kadib weeyaan. waanu dadaalanaa umuuro iyo duruufo uun dacwo ku saabsan baanu la dahnay. inta markaanu ka tagno maanta mawduuceeni ayaanu soo gabagabaynaynaa sidaan shalayba sheegnay. mawduuceena ku saabsanaa ee qiimaha badnaa aynu kusoo jiray oo ahaa alamnu wa ahmiyatu fi lfardi walmujtamac, amniga iyo nabadgelyada iyo ahmiyadda u leeyahay shaksiga iyo ummadoo dhanba. maanta ayaan soo gebagabaynaynaa. taqriiban waxaan soo qaadanay ilaa 7 xadiis. kii 8aad baanu kusoo gebagabaynaynaa maanta. waxaanu u dooranay gebagabada maanta duca nabiga calayhi salaatu wasalaam, sabaax walmasaa, adkaaru sabaax walmasaa, had iyo jeer uu daa'imi jiray. oy ka mid tahay badbaado fi dunya walaakhira, inuu ilaahay badbaadiyo, amni iyo maaragtay istiqraarra ilaahay uu siiyo, diin iyo maaragtay adduun iyo aakhiraba, ama xag diineed iyo xag dunawiba, inuu ilaahay istiqraar iyo amni uu siiyo ilaahay weydiisan jiray. duca cadiima weeyaane aad iyo aad u qiimo badan. ikhwati fillah, xadiidkan markaanu sida asalka noo ahayd aan ta'siilino, ibnu maaja baa xadiidka soo saaray, abu daawuud baa soo saaray iyo keyrkoodba. marka xadiidku waa xadiid saxiixa. sheekh albani raxmatullahi caleyh wuu saxiinaya, ilaa dhowr meelood buu ku saxiinhayaa. sunan ibnu maajah buu ku saxiinaya oo meeshaan xadiidka kasoo xiganaynaa. raqamka xadiidka 3871. waxaa kaloo ku saxiinaya sunan abi daawuud raqamka xadiidka 5074. waxaa kaloo ku saxiixinayaa saxiix jaamic saxiix targhiib wa tarhiib yuu ku saxiixinayaa raqamka xadiidka 659. intaasoo dhan ba xadiidku waa xadiid saxiixo sheekh albani uu ku saxiixinay. xadiidka macnihiisa muxuu yahay? waxaan aad u jeclaan lahaa qof kasta oo muslima oo soomaali ah oo xadiidkan uu gaadho inuu ducadan xifdiyo oo barto. waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ba aad u daa'imi jiray, aroor sabaax iyo galabba uu daa'imi jiray. ducooyinkii adkaartu akhrisan jiray buu ku dari jiray. ibnu cumar wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhuma wa ardaah: lam yakun muusa ahaanin rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku muusa ahaan jirin yadacu mid ka taga haaulaai kuwa addacawaati ee ducooyinka, kelimaadka ducooyinka nabigu kamuusa tegi jirin xiina yumsi markuu galabaysanhayo, wa xiina yusbixu markuu waaberiisanayo. aroortii iyo galabkii midna kamuusa tegi jirin. aroor iyo galab waxa la dhahan horaan baan ka soo hadalnay. kelimaadku maxay yihiin? alfaadaha kale oo qaar waxay ahaayeen nabigu kamuusa tegi jirin lam yakun rasuulullahi sala allahu alayh wasalam yadacu haaulaai alkelimaat. kelimaad bay ka cabireen. kelimaadka nabigu aroor iyo galabtoona kamuusa tegeen. maxay yihiin kelimaadkaas? dhegaysta marka waa kan: allaahuma allahayow, inii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alcafwa walcaafiya. ama lafdiga haddaan akhrina waxaa weeyaan kelimaadku nabigu daa'imi jiray: allaahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiyata fi dunya walaakhira, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. دعاء النبي دائما معنى هذا محيته: اللهم الله يو إني أنا أسألك وحن كويدي سنة العفو، مسامحا كويدي سنة iyo maartay dhaafitaan iyo wacdamul akhdi qabashalaan aan la qabanin dunuub iyo wal caafiyata badbaado fi dunya wal aakhira. ilaahu waxaan ku weydiisanayaa adduun iyo aakhira badbaadan ku weydiisanayaa. caafiyada waxaa leeyahay assalaamatu wan najaat baa leeyahay. salaamo nabadgelyo iyo badbaado adduun iyo aakhira aad badbaadi.
adduunkana aad ka badbaadi masaa'ibka iyo sharka iyo dhibaatooyinka wax allaala wixii ku xumeeyo dhan ka badbaadi aakhirana cadho ilaah iyo cadaab aad ka badbaadi wey cafiskuna waxa weeyaan almusaamaxatu wa cadamu alakhd in lagu saamaxo lagu cafiyo aana lagu qabanin dunuubta aad gashay idan ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa alcafwa musaamaxo iyo qabasho la'aan aada ii qabanin dunuubtii aan galay ood iga cafido iga dhaafti iyo caafiye badbaado salaamo iyo najaad badbaado fi dunya walaakhira adduunya aakhiraba inaan badbaado allahuma allahyow inii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa alcafwa cafis baan ku weydiisanayaa iyo walcaafiyata badbaada fi diini wa dunyaaya diintayda iyo adduunyadaydaba cafis iyo badbaadaan ku weydiisanayaa cafiska diintu culamada qaar ba waxay leeyihin diinta waxaa loo jeedaa fi laakhira aakhiradiina inaad cafidi adduunkana inaad badbaadis sidoo kale marka alcafu marka waxay noqonaya fi diini diinkayga musaama wixii gaabisa oon galo inaad iga dhaafti maarta yaan ku weydiisanaya walcaafiyatana fi diini wa dunyaaya caafiyada fi diin waxaa loo jeedaa assalaamatu wannajaat min maartay aad ka badbaadii waxa la yidhaahdo min alfitani maartay fitanka wa min ashahwati washubahaat shahwada iyo shubhaadka iyo fitanka wa min albidaci walmukhaalafaat caafiyada fi diin waa midaas wey inaad fitanka ilaahay uu diinta kaa fidnayn oo ka badbaadi inuu ilaahay subxaana wa tacaala shahwaadka iyo shubahaadka diinta uu kaaga ilaaliyo mukhaalafaadka iyo garamarka iyo bidcada ilaahay subxaana wa tacaala uu diintaada kaaga badbaadiyo adduunyadana masaa'ib iyo shar iyo dhibaato dhan aad ka badbaadi wey ayaan ilaahu ku weydiisanayaa wey wa ahli baan ku weydiisanayaa ahalkayga iyo wa maali ayagana cafis iyo caafimaad bimacnaa cafis iyo badbaadaan ku weydiinhayaa maarata ahalkayga iyo maalkayga ahalka carruurtaadii baa soo geli zawjadaadii baa soo geli qaraabadaadii baa soo gelaysa yani allahuma inii asaluka waxaan ku weydiisanayaa alcafwa musaamaxa iyo dhaafitaan iyo walcaafiyata badbaada fi diini wa dunyaaya diin iyo addunyaba inay ii badbaadaan oo maarata wix allaale wixii diintayda dhaawacayo o dhan aan ka badbaado aad ii badbaadisi iyo wixii adduunkayga hallaynhayo o dhan iyo wa ahli ahalkayga ayaan badbaado ku weydiisanayaa inay ii badbaadaan fi diini maarata wadunya iyo wa maali xoolahayga inay maarata wixii dhib u keenhaya oo maarata ama khasaaro ama naqsi ah inaad maaratay iiga badbaadisi allahuma allahyow astur allahu astur cawraati ceebahayga ilaahu astur ceeb waxaa la yihahdaa wax allaale iyo wixii aada jeclayn inuu banaanka yimaado oo kuu qarsoon allahuma allahyow astur allahu astur cawraati ceebahayga ilaahu astur wa aamin rawcaati aad iyo aad u dhegaysta halka wa aamin rawcaati amnigaanu ka hadlayna wa aamin rawcaati macnaheedu maxay tahay bimacnaa aaminii ijcalnii allow iga yeel aaminan mid aaminkaa min kulli maa yukhiifunii wax kastoo i cabsi geliya wa yusabib sababa ila aljazaci argagax iyo cabsi wax kastoo igu keena allow iga badbaadi wey wa aamin rawcaati alrawcu waxaa lihi alfazacu walkhawf yani ijcalnii saaliman wey waxaa kaloo la dhihi karaa idfac allow riix canii xaggayga maaragtay alkhawfa ama khawfan yuqliqunii maarata wayuscijunii ilaahow iga fogee wax allaale iyo wixii cabsi iyo argagax igu keeni kara wey wa aamin rawcaati allow markaa ijcalnii saaliman wey allow iga yeel mid markaa nabadgalay ee maarata min kulli khawfin wa min kulli sharin wax kaste oo argagax geliya wey ijcalnii allahu iga yeel aaminan mid aamina cinda alrawci walkhawfi walfazac yani wax kasta oo argagax keena ama keena cabsi keena mid maarata ilaahu aamin iga dhig oo iga badbaadi wey waxfadnii allahu ixifdi min bayni yadaya hortayda allahu iga xifdi oo hor dhibaad yuusa iga iman xagga hore jihadan hore wa min khalfi gadaashaydana allahu ixifdi oo wax yuusa dhib iga imanin gadaal wa can yamiini midigtayga wa can shimaali bidixdayda wa min fawqi korkayga idan waxa weeyaan waa hor iyo maaragtay gadaal iyo midig iyo bidix waa 4 jiho iyo kor waa 5 waa cudwan magan geli bika adiga aan uqtaala in maaragtay in la idafo min taxti hoost bimacnaa raawiga waa ka celiyahadoo ku jira sanadka wuxuu leeyahay an uqtaala min taxti waxaa loo jeedaa alkhasf dhulgooyo hoosta in laila gooyo bimacnaa adhahaabu bilkhufya la yihahdo qofka si maarata qarsoodiya loola baxo bimacnaa in hoosta laigala baxo oo dhulka laila gooyo an uqtaala min taxti bimacnaa an ukhsafa min taxti
dhulka in hoosta lila gooyo baan ilaahay adiga ka maangalahayaa ducadaas oo akhawaati fil aqeeda ayuu nabigu akhrisan jiray waa duca muhiim ah adduun iyo aakhira wuxuu nabigu ka tagay male diin iyo dunya wuxuu ka tagay male wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam idan ducada inaan akhrisano badbaada ku jirta ducada waxaa dimigeeda kamida yani Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay nabigu kamuusa tagi jirin ducadaas lam yakun rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yad'u haula ad-da'awat lam yakun nafi bugeli kama tagi istimraariyo inuu joogto u akhrisan jiray sabaax al-masa aroortii iyo galabkii ayay ku tusinaysaa ducooyinkaas uu ku duceyso galabkii iyo aroortiiba oo yiraahdo ilaahayow afisi musaamaxo yaan ku weydiisanayaa iyo badbaado iyo maartay nabadgeliyo fi dunya wal aakhirah addunya aakhirah inaan badbaado waxa kale oo ku weydiisanayaa afis baan ku weydiisan iyo badbaado diinta iyo maartay adduunkaygaba ii badbaadaan iyo ahalkaygu ii badbaado maalkaygu ii badbaado waxaan ku weydiisanayaa cawradayda iyo ceebahayga inaad asturti waxaan ku weydiisanayaa inaan inaad iga nabadgelisi igana badbaadisi wa amin rawcati min kulli ma maartay yukhifuni wax kasto ay cabsi geliya oo argagax igu rida oo maartay amni darre igu rida inaad iga badbaadisi baan ku weydiisanayaa iga fogeys idfa anni min kulli ma yukhifuni wax kasto ay cabsi gelinayo min ashururi maartay wal faza inaad maartay iga nabadgelisi wuxuu yiri Allah maartay Allah ii xifdi yani hortayda xifdi hor inuu wax iga yimaado iyo gadaal midig bidix kor waxa kaloon maartay ka maangalayaa inay hoosta dhul gooyo la maartay la igala yimaado oo dhulka la ila gooyo culimadu waxay leeyihiin si khaasaneed wuxuu khasfiga nabigu u sheegay waa maartay waa cadaabiyaha ugu daran way inuu qofka dhulka la gooyo qofka dhulka in la gooyo ikhwati fillahi marka ducadan waxaan u dooranay maadaama amni aanu ka hadlaynay oo ahmiyada uu leeyahay istiqraarka uu qofka iyo mujtamaca uu leeyahay aanu ka hadlaynay muhiim bay ducadan ay tahay inuu qofku akhristo galab iyo aroorba intaad xifdid inaad akhrisid inuu ilaahay adduun iyo aakhiraba ku badbaadiyo diintaada inuu ilaahay badbaadiyo maartay dunyadaadana inuu ilaahay badbaadiyo ehelkaada iyo maalkaada iyo waxaadoo dhan ilaahay inuu badbaadiyo ceebtaada inuu ilaahay asturo amni inuu ilaahay kugu irsaaqo oo ka badbaadiyo wax kasta oo ku cabsi geliya inuu ilaahay uu ka badbaadiyo hor iyo gadaal in lagaaga yimaado ama midig iyo bidix in lagaaga yimaado ama kor lagaaga yimaado ama hoos lagaaga yimaado dhulku lagula gooyo inaad ilaahay ka magan gashi intaas oo dhanba waa ducada xadiidka ku jirta way marka runtii xaqiiqatan waa duca cadiima oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan codsanayaa u dardaarmaya naftayda iyo naftiinaba inaan ducada barano ducada inaan barano allahumma astur awrati wa amin rawati duca cajiiba kalimaad cajiiba ilaahu ceebahayga astur ceebtayda ilaahu astur wa amin rawati waj'alni saliman min kulli ma yukhifuni allah iga yeel mid ka badbaada oo aaminka ij'alni aaminan mid aamina min kulli ma yukhawifuni wax kasto ay cabsi geliya allah iga maartay aamin iga dhig weeyaan wax kasto maartay cabsi geliyo rubuc iyo argagax ku maartay igu keena mid ka badbaada oo aaminka ilaahu iga dhig weey duca cajiiba weeyaan ikhwati fillahi waxaan naftayda naftiina u dardaarmahay ducada barashadeeda ilaahina subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa baasmaan xusna wa sifaat al-ula inuu xaqana tusan uu nirdaqa xaq raacitaankiisa halkaasana waxaan ku soo gabagabeynaa mawduuceena ku saabsanaa al-amn wa ahmiyatuhu fi al-fard wal mujtama' amniga ahmiyada uu leeyahay mujtamaca iyo fardiga iyo ummadda oo dhanba qiimaha uu leeyahay shariicada islaamka wax la koobi karo oo aad iyo aad way u fara badan tahay inta ay ka hadashay quraan noqoto iyo xadiis noqotaba hal mar ma xadiiska akhriskiisa ku celinaya الحديث 479 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي رواه ابن ماجه وأبو داود والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.